أنا وحلا يرها ديريا محمد حسين عالك أن أفردني وأنا قدمي وهاللابي وماشان وكل ما هينا بابا وايدتكي إن أمارتي قلبتا waxaan ku leeyahay xaafadan hadaan laga soo dhax qaadin ruux oon u dhintay hadaan laga soo dhax qaadin waa weegta ilaahay iyo dawladda u baahan aan iskunayna waxaan rabnaa walaalow dadkii waa dhimaan haynaa maandho tabaraac xogaha nala seesi waa biyan ku dhaansanay kuwaan ku dhaqdhaqaaqayna waa kuwa ayadahay waxaan rabnaa in oo maaratay madaxda xildhibaanada midka koonfurta wajeer iyo hay'adaha samafalka iyo maaratay xildhibaanaha wax noo qabtaan ama loo helo waa dhamaani haynaa waxaan rabnaa ceelka in noola suro waxaan rabnaa ceelka in la warta bal ishaan leenahay aad galabta ilaahay baa un markan iska leh waxaan rabnaa ceelka in noola suro waa dhamaan haynaa dad iyo duuyo waa dhamaan haynaa duuyo waaba laga tagay hadda dadka ay taagan tahay baantadan ay joogno dadka ay taagan tahay waxaan u baahannahay madaxda inay ceelka noo surto inay noola imaado inay ceelka meeshii war dadkan idinkaas idin jooga idinkaan hoos ka jira idinkaan walaalihiin aan nahay ceelka waa dhammaan haynaa walaalayaalow ceelkii in noola suraan baa baahannahay ceelkii waxaa ka maqan durmaa ka maqan annaga soolaa iyo injinkii waa haysanaa walaalayaalow alaab haddaad haysata waa fududdah ninkii aqaana waa fududyahay ceelkii injinkii haddaan haysana haddaan soolaa haysana ceelkii degdegaas u baahaya inaan dhaqaalihii aad wax naga siisiin ceelka noo durto inaan u baahannahay waxaan u baahannahay cadow inaas noo soo degdegsada oo ceelka noo duro walaalkayn aan dooranay waaya embigaayna waaya inaas noo imaada aan eed u baahannahay ceelka aad noo duro wixii noo tari kara aad degdeg as noogu keena walaalkayn markaan dooranayni oo ma dooranin inaas kaligiis as meel yar as gala dadka oo dhan waxaad u doortay inaas wax u qaban kara oo loo doortay hahay markii la doortay waa ku faraxnay walaalow waa kugu faraxnay haddana waa kugu farxaynaa ceelkii waa naga dumay tabar ma hayno dhib haddiis wax taraya waanta waa qabnaa markii hore kaamtigaa ceelka noo qoday inta artaan ku nooleen walaalow waxaan rabnaa ceelkii inaad degdeg aad noogu soo joogto عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa muslimiinta oo dhan waxay turaabta joogo waxa kale oo dheeraatay noo sii ani waxaan ka imaaday waraha buurka dheer waxa la yiraahdaa Bashaar Cali Cabdi waxa kale oo dheeraatay noo sii buurka dheer waxaan u maleynaa 7 kiiloomitir ay u jirtaa Guuleed dheer waxa ceelka noo aan u fadhinina ceelka Guuleed dheer waa sida meesha ka waraabsanaa dameerka meesha ka dhaansanaa waxa meesha ka waraabsanaa sacada meesha ka waraabsanaa adduunka hadda la joogan waa la arkay turaab ilaahay xoolihii meeda iskii wax dhaqaaqay male ceelkiina wuu naga halaabay reeguleed dheer uma aha meelka ceelka dad badan ku noolaa maxay la wadaha buurka dheer dadka degan meel kale ay ku noolaayeen malaha kulli waxaan u maleynaa kulli tii ilaahay waa meel laakiin saacad hadda aan joogno saacad xunaan taagan hal guur hadii la dhahana gaadiidkii ma haysan dad meesha ku guru baalib maxay hal guur hadii la dhaho gaadiid aan haysan oo qarsh aan haysan dhibaatada way far badan anigoo Bashaar Cali waxaan leeyahay dawladda dadweynaha muslimka ilaahay gargaar hana loo sameeyo ceelkii hana loo suro ceelka noogu dar wax kastaba hatta gargaar booyid oo lagu keenay waxa ilaahay barkiisu ay deeqayo male maxaa yeelay magaalada Guuleed dheer maanta afka inaan ku hirgalnay on maxaa yeelay hadii oo la dhahaa booyid hana loo keenay booyidii la keenay dad deeqi laaba wax banaad keenan waa saas waxaan rabnaa nolosha ugu horeys hatta waxa jiri ceel meelahan oo la duri oo ka kacmi noqday ma sheey karna oo waa fiican la dhahay marka ida daboolna afka laga saari hadii oo ay noqoto laf ahaanteedi waxaan rabnaa walaha buurka dheer iyo Guuleed dheer anagoo isla taagan ceelkii in loo hagaajiyo oo si degdegsinya nala soo gaaro hadii nala soo gaari waayo kulli waxaan u maleynaa mid uma meesha looga imaan barakaatu waxaan salaamayaa muslimiinta iyo xildhibaanada
dadka sharafta leh oo dawladda iyo dadweynaha u dhaxeeyo waxaanu codsanaynaa waa intay dadkaas sheegeen odayaashii igu horreeyey ay sheegeen magacayga waxaa la dhahaa maxamed macalin axmed oo odayaasha guulad dheeraan ka mid ahay intii odayaasha ay sheegeen intaas oo tafatiran yaa meeshii taalla dhibaataa taalla abaar joogto ah oo ilaa 11 biloodna soo haysay oo la dhibaataysneed iyo ceelkii oo naga dumay oo abaar labaad nagu noqday meel loo guuri kara aan lahayn meel la aadi kara aan lahayn maxasti adduunyadii mashquulkeedii oo tirada ka batay baktigii oo adduunyada meelaha wada yaala kii noolaayoon haysanayna wax ku sigan u yahay baktigii asaga ahaa adduunyada hadda taladii wayba ka weynaatay dadkii aan u yaabannahay waxaanu codsanaynaa oon soo jeedinaynaa in dhibaatadaas ummaddaas guuleed dheera iyo ka hortagaas dawladda iyo muslimiintoo dhan inay macnaha ay wax nagala qabtaan oo inoo gurmadaan sida ugu degdegta badan muhiimaddana ay tahay ceel la duro oo motoorkii waa noo caadiyu noo yahay soolarkii waa haysanaa duritaankii ceelkii oo gurmad degdeg ah aan oga baahannahay dadweynaha ku nool guuleed dheer oo tiro badan oo dhibaataysan oo codsigooda uu xaqiiqo yahay oon been ahayn iyo wax ku doon aan ahayn dhibaato run ah meesha taalla muslimiinta iyo waxaan u sheegaynaynaa dawladda sharafta leh أنا مقعيق وحاوي أحمد إبراهيم أضي وحان كان فين دحي أضياشا قوليت ديرة وقتي أو حق إلهي كإما هذا أيامان تجرا أو ودن كو إدل صابتي ودن كالك أنا هدان هاي قوليت ديرة وحكا ديرات أنقبنا محاكا ديرات نوئه وحكا ديرات نوئه أيال كالناقي وان كعب جيرنا ودنسان يهود مي وطا أيا نوئه ماتي حالي وينال باردي شالي وينال هرقشي بيريه باي كسو قفتي beri hadda ka soo qabto waxay dhahan ceelkan ka kac waaye dadkana meesha ku dhamaanahay dunyadii iyo dadkiiba way dhamaanayaan xoolihii caata waaye meel ma gaaraan booyadii biyaha hadii lagu imaan lahaa nin siciba uu ka fadhiyo ama irdiib ay ka dhiman hayso maxaa booyad la imaadaa ilmaha naga dhamaanayaanbo sicina wuu fadhiyaa irina wuu dhamaanayaabo waxaan booyad kula imaana ma qabno waxaan booyad kula imaano ma haysano xoolihii way dhamaanayaan dadkii wuu dhamaanayaa ceelkii wuu naga dumay wootaa waxay tiraahay dawladda u qaylista ee hay-adaha u qaylista muslimiinta u qaylista haddaan nahay reer guuleed dheere waxaan rabnaa madaxweynaha embiga muslimiinta madaxda gafanaha dawladda inay la soo gaargaarto gaargaaran u baahannahay haddaan nahay reer guuleed dheere annaga reer guuleed dheeraan nahay waan dayacannahay waana oomanahay matoorkii waqti horuu naga halaabay intaanba cos iyo qayli maalin walba aan geysanayne dawladda xaggeeda wax nooga soo socda wax nooga imaanaya ma laha waan il darannahay caawa magaaladayna qof hadduu ku dhinto biyo lagu shuur bixiya ma laha matoorka wuu naga dume ilaa wiig iyo wiig kale 20 beri ka hor aan matoorkan aan ka qalab qaadano aniga dudayayn iyo dadkayn aan booyada iyo rafaad iyo dhib aan u wareeganhaynaa waxaan isla hayna ma laha dad haddii la doorto ama dawladda soo itayna dal ahaan iyo magaalo noola soo maraa wax noola ogyahana ma laha aad baan meesha ugu dhibaataysan anoo reer guuleed dheere aniga waxaa la dhahaa isniin xuseen waxaan nahay reer guuleed dheere waxaan ka hadlahayaa dhibka iyo abaaraha waddanka saameysay weli qasuusan annaga reer guuleed dheere haddaan nahay ceel yar oo waxaan haysanay oo dhanuune ceelkii wuu naga dumay alxamdulilah ilaahay agtiis wax soo maraa noo imaaday dadkii aan doorannay oo madaxda leh oo madaxweynaha leh oo gafana leh oo sanata leh oo embiile oo maalintii ma aragtaaye la dhaariye waxaan u baahannahay inaad gacanna siisaan waddankii oon baa ka dhacay abaara baa ka dhaceen meeshanaytow ilmihii iyo hadda xoolo iskaba dhaafee dadkii ma aragtay ilmihii iyo waxaa loo yaaban yahay waa yeelihii biyaha waxay noogu imaadaan wajeer ka soka biyo ma laha booyadihii jidkii ay soo mari la'yihiin booyadaha waxay ku imaanahayaan 35 ilaa 40 dadweynaha maartay aad baa loo liitaa abaaraa dhaceen meeshanaytow dadkii wax la cunaa la la'yahay ilmihii iskuulkii macallimiinta waa biyo la'aan macallimiinta dugsiga hataa ilmihii way aadi la'yihiin iskuulkayna biyo ma laha badarkii dawladda ay u keentay wax loogu kariyaa la la'yahay macallimiinta biyo dabka ay saartaan ay la'yihiin hadda dawladda waxaan codsanaynaa iyo dadkii aan dooranay oo yoomal qiyaamo la xisaabin doono waxaan u baahannahay inaad gacanna siisaan oo ceel degdegna aad noo surtaan ceelkii wuu naga halaawsan yahay